gudoomiyaha xisbiga ucid injineer Faysal Cali Waraabe iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa maanta waxay gaadheen magaalada Balli-Gubadle ee xarunta gobolka Hawde waxaana halkaasi ku soo dhaweeyay odayaasha iyo waxgaradka iyo bulshada ku dhaqan magaaladaasi ugu horreynna waxaa halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka Balli-Gubadle maayir ku-xigeenka magaalada Balli-Gubadle iyo qaar ka mid ah odayaasha deegaankaasi sidaa darteed gudoomiyuhu waxa uu ku dadaalay inuu gobolka Hawd bulshadeeda la wadaago indhaynta wixii xog uu hayana uu halkan ka siiyo waxaanu leenahay bulshada reer gobolka Hawd gudoomiye ku soo dhawow gobolka Hawd waa gobolkaagii labaad wadiga ka musharaxa waxaanu leenahay gacmo furan iyo qalbi furan gudoomiye ku soo dhawow xusbiga ucid waa xusbi 22 jira insha Allah wasarka waxaanu rajaynaynaa inuu gudoomiyuhu kii ku guuleysan noqdo oo noqdo madaxweyne mustaqbalka waxaan taa ku dari lahaa hadiya habeen waa ninka u hadla jumhuuriyadda reer Somaliland waa ninka difaaca wayna arkeenay maanta dhaweytoole jiida hore ayuu tagay wuxuu la joogay militariga cid walba Faysal raali bay ka tahay hadaba waxaan garan lahayaa sida raali looga yahay marka codka u dhacayo Faysal waxa kaga dhacayo sanadku way ugu duceynaa insha Allah waxaan intaa ku darayaa oo sanadka wuxuu tagay Sheekh Isxaaq waxaan arkay isagoo kii dariiqii sheekh ku duceysan quraanka akhriyo jira ku duceysanaya waxaan leeyahay sanadkan waxba ka dhinaynaa waa gobolkaagii mar kasta iyo maanta iyo maalin kasta waan ku soo dhaweynaynaa insha Allah waxaan ku rajaynaynaa gudoomiye guul inaad ku guuleysato waayo dadaal badan iyo waqti badan baad soo gelisay sida gudoomiye ku-xigeenku uu sheegay 22 jir baa tahay waa qaangaar iyo waliba saayid doorka waxa ku rajaynaynaa inaad ku guuleysato gacmo furan ku soo dhawow in badan buu soo halgamay in badan buu gacmaha hoos dhigtay in badan baa laga yaxday in badan baa nana loo eegay saaga gobolka Hawd waxaanu leenahay karaamo iyo kalgacalo iyo wada dhalasho iyo wada xigis inaynu ku soo dhaweeyno maxaa ka qabtaan gobolka Hawd intaa waxaan kugu daraya deriba ninka xigaa kala hilbabaxa Faysal Cali Waraabe saaga guriga dhikaana xigto been la isu sheeg maayo waxa wixii kale waa ka daba toore dhageys waxaanu leenahay si wanaagsan oo hambalyo inta noo soo dhaweyn aanu soo dhaweyna aanu hambalyeyn oo nu odaynaan leeyahay haloo odeeya Faysal Cali Waraabe hadda gobolka Hawd ta kale raada jawa Faysal Cali Waraabe waxaanu leeyahay salaxda iyo Balli-Gubadle waa mid balligeysa waa magaciidan gala baxay dhageysa arabow Faysal Cali Waraabe waxaan ku soo dhaweyn isla salaxda iyo Balli-Gubadle intaanu isku furano kama furano ku soo saaro ya waan kugu ducaynay Ilaahay si bayaan oo adag oo ku tamariso oo ku qaadad ku qaangaadhay Ilaahay kugu la kulmiyo anala kama furan baan kugu soo dhaweynaynaa aad waxaan u faraxsanahay gobolkaygii aan ka soo jeeday ee Balli-Gubadle on maanta dhex joogo anigoo la socda madaxweynaheena mustaqbalka Faysal Cali Xuseen ninna dhuuni cunuu kula jooga ninna dhaqasho ayuu kula jooga marka Faysal dhaqasho ayuuna lagala jooga codkeenuna waa Faysal insha Allah gudoomiyaha xisbiga ucid injineer Faysal Cali Waraabe ayaa isaguna halkaasi ka hadlay maanta anagu maanu iman magaalada saayay campaign maanu iman bari baan ka nimi waxa weeye dalkeena maanta dawladeenu dadkeena uma waranto waxyaalo badan way nagu socdaan arrimo badan way taagan yihiin arrimaha taagan ee had inay dawladdu ummadeeda u waranto dawladii afkeeda way xidhantay waxay noo warrama cadawga marka cadawga inta soo gaaray inay warkooda qaadataan warka xaqiiqda ah aan siino dhulkii horta barigaan ka yimid barigu waa nabad alxamdulillaah rabbil caalamiin dawladda ay markaa ka tabanaysan xaggeena loo tiriyaa
galbeedkaa loo tiriyaa dowladdaas barigina maxaad u malaynaysaa markaas waxa weeye maanta dalkeenu 330 sano u jiray 330 sano aynu soo ceshanay magaalada si xorriyadeeni maanta ilaahay moo jecelka dalkeena la xukumi jirin maanta wax aynu ku faano oo nabad ahayn horta lama qaban wixii noo dhisay cigaal ilaahay oo naxariistay riyaalana ku xijiyay waxa gacanta marka uu gashay xusbiga la yiraahdo kulmiye kii hore iyo kan dambaba ay horta dalkii wixii aynu isku ahayn oo meesh ka baxay wada dhalasho way ka baxday xubadii Soomaaliland meesha way ka baxday laana wax weeye dadka hoggaanka ayaa u taliya halku jeexumay dadku la maraan qulubteeni kala tagtay waxay keentay in maanta dalkeeni badmaqan yahay magaca kale la baxay maanta waxaad arkaysay nin ka hadlaya barigaas Axmed Karaash la yiraahdo oo u baaya eergaabo u baaya halka leena maraya waa aragtay ilaahay baan ku dhaariyay walaal marka waxa weey marka dal la helo marka nabad la helo ayaa doorasho la helaa marka midnimo la helo ayaa doorasho helaa dalkeenu maanta doorashada waxaan doonaynaa gacanta ku qabanno difaaca qaranka gacanta ku qabanno inagoo midaysan cadowgeenu wuxuu ku dhimanayaa oo dilaya waa midnimadeena maanta dadka maanta ina kala saara qoys baynu nahay uu ka xun yahay afweyne yaa la kala saaray caruurtaasi mustaqbal bay u baahan tahay ma wasiira u baahan tahay mise horumar u baahan tahay ma toban shan arab sheekh saxaaga wasiirada la siiyo waxba intaan ilaahay ku dhaariyay wada u baahan tahay maanta waa aragtay wadada salaxay tagtay wadada tagta baligubadle oo isku xidha Ethiopia kiilka shanaad iyo Soomaaliland waliga isku xidhi jirtay si maanta tay waa aragtaan ilaahay baan ku dhaariyay ma dadkeena wadada sameeysan kari waayay ilaahay baan ku dhaariyay ay kala doorka kale ka dhigi waayay ayaa wadan xukuumada ilaahay baan ku dhaariyay oo maanta inoo soo bu'ayaan ilaahay baan ku dhaariyay wala waxaan sameeynaa wadooyinka waan sameeynaa labada wado insha Allah ta'ala iyo tii burco Hargeysa iyo taxeebta marta mudnaantan siinaa insha Allah ta'ala hadaan soo baxo insha Allah ta'ala waan aragtay baabuurtu isjiidanaya oo xoolihi sida oo arigi geeli sida oo loodi sida oo wado xuma haysan arkay ilaahay baan ku dhaariyay ma dambeer xuma soo marka ilaahay baan ku dhaariyay ina wadada inta la sameyn kari waayo maxay idin sheegayeen marka idin yimaadaan halkan sharika hadiyeen kulmiye ka hadiyay muxuu idin sheegay ku faanaya wuxuu ku faanaya Soomaha waxa maanta taagan ciidankeeni agageen magaalada saay yuucda wuxuu maanta taagan og waana maalinta u tagay mar saddexaadkii ceebta inagu socota inagoo magaceen laga bixi jiray inagoo haybadeen laga bixi jiray ayaa maanta inoo hanjabiya Axmed Karaash waxa qeyrkiisa ilaahay baan ku dhaariyay ilaahay baan halka leena marin ilaahay baan ku dhaariyay halkaas ayna marinaya aad iyo ma ugu farxay degmadii gobolka horta ilaahay bay degaysa laxdiisa iska siisiyo ilaahay baa meel wada dejiyay waa isleedihiin tii macdan noqotaa waa tii kale alxamdulilaahi rabbil caalamiin anagoo dadka marka hore hawd taniyaan u ahaa berigi la soo saaray marka ay hawd wuxuu baahay qaran buu baahay hawd mu jiray hadaan qaran jirin qarankeenu horeysiinina horta marka hore gobolada marka gacantayna ku haysanaa waan aad baan ugu farxay saar ay u balaaratay degmadan oo la dhisiyo oo la bilaabiyo anu waan u taagna barkadii hore la qodiyo waata la bisadii horeysana keenay maanta waa caasimada noqotay alxamdulillah rabbil caalamiin kitaabka ilaahay sunnah rasuulka isku xukumay alayhi salaam kaasa inoo kaasaynu ka tegina habraha abtisimada habraha taasaynu ka tegina insha Allah ta'ala taasaynu ka tegina ya kaasuu ma laga tegay wax kale laga tegi maayo moogtahay kaasaynu ka tegina axdigan ilaahay la galay markii aynu la dagaalamay fircoonkii aynu kaasaan ku xukuminaa aynu ku qoranay tawxiidka kaasaan ka dhabaynaa insha Allah ta'ala dhinaca kale gudoomiyuhu waxa uu ka qayb galay munaasabad ay ku qalin jabinayeen arday baratay quraanka waxaana halkaasi ka hadlay gudoomiyaha gobolka Maroodi Sheekh Maxamed Aadan ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu idinku soo beegay gudoomiyaha xisbiga wixii ahna murashaxa madaxweynaha xisbiga cadaaladda iyo daryeelka gudoomiyaha marka loo sheegay xafladan aad iyo aad buu idin qiimeeyay waanu kalmad buu idinka oran doonaa insha Allah ta'ala
madarisadan cabdilaahi ibnu cabbaas runtii halkan ka furan gobolkan hawd runtii waxaa ka muuqda inay soo saartay arday ku labisan runtii kitaabka qur'aanka iyo sunnada nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam waanay ka muuqataa madarisadana aad baan ugu mahadnaqaynaa waxaan idin leeyahay soo barbaara guulaysta ugu dambeynna guddoomiyaha xisbiga ucid injineer faysal cali waraabe ayaa halkaasi khudbad kooban uga jeediyey ardaydii dhammaysatay qur'aanka aabbayaal carruurteydii baa tihiin oo kale uma socdo magaranaysaayey cambaign laakiin waxaan u socdaa waxa weeye barina waan ka imi oo inaan dadka u warramo xaalada dalkeenna ayaan u warramaya ayaan ku imi ilaahay mahadi wey horta aan la soo beegmay xaflad diini ah oo 330 dhalinyaro ah ay quraankii maanta qalijabiyeen oo wali waxa u weyn oo faan ah 22 inay habla yihiin ma sha Allah ma sha Allah ma sha Allah garaa wala tartamaya waxa lagu tartamaya wanaaga lagu tartamaya habli waa kuwaas alxamdulillah rabbil alamin safka hore ku jiraan walaalayaal waa wax la barta diinta ugu qoymo badan inagoo tawxiidka calankeena ku taala tawxiidka yaa ku taala markaynu halgaminay ballan waxaynu qaadnay inaynu kitaabka ilaahay iyo sunnaha rasuulka aan ku xukumi doono dalkeena cuqubadiisa bayna hayso soo ka ku xukumayna insha Allah taala kaasaynu qabyaalada kaga tagina